dhawaada barnaamijkeena Boundless Media. Waa anigoo ah Ridwaan Cali, halkana maanta waxaa marti igu ah Yusuf kana shaqeeya Gateway Community Service, kana qabta arrimaha bulshada, sidoo kalena ka shaqeeya guddiga maamulka iskuulaadka Portland. Halka maanta waxaan ku weydiin doonaa su'aalo yaryar oo ku saabsan talaalka walaalkeen Yusuf maxaad ka qabtaa talaalka noocee baad qaadatay, laakiinse goormaad go-aansatay inaad talaalkaas aad qaadatid? Ridwaan walaal waad mahadsan tahay, waan ku hambalyeynayaa barnaamijkaaga, waan ku salaamayaa adiga iyo daawadayaashaada. Nooca aan qaatay talaalka waxaa la yidhaahdaa Pfizer, waxaana igu dhaliyay inaan qaato. Shaqadayda ayaa ah shaqooyinka laga dalbaday inay markii horeba qaataan talaalka. Marka sidaa daraadeed waxaana lagu dhiirigeliyey inaan, maadaama aan dadkii la shaqeynayno, inaan qaadano talaalka annaga dadka horey u qaatay inaan ka mid noqono. Marka sidaasaa igu dhaliyey. Kadibna number baa nala siiyey, numberkii baan wacay, sidaasaan ku qaatay, ballanti ku samaystay. Dad badan gaar ahaan dadka waaweyn ayaa dhibaato ku qaba sidii ay u qabsan lahaayeen ballamooyin ama sidii ay u heli lahaayeen wixii la wici lahaa. So markaas adiga wadooyinkii aad martay si aad ku qaadatay talaalka maad noo sheegi kartaa wax yar? Haa, waan ku sheegi karaa. Aniga qaabkan ku helay kow wuxuu ahaa shaqadayda ayaa sidan kuu sheegayba laga dalbaday inaan sameyno. Number baa nala siiyey, numberkii baan la hadalnay. Iyada lafteeda may fududeyn oo waxaa kaa qabanaya computer, machine baa kula hadlaya, machiinkaasaad informationkaagii aad gelinaysaa, wuxuuna ku dhahaya waa kusoo wici doonaa haddii aad tahay eligible, marka haddaad u qalantid. Marka waxaan sameeyey number kale ayaan helay oo magaalooyinka statekeenan Maine kamida oo yar oo aan lahayn dad badan oo soo wacaya. Marka Brunswick magaalada la yiraahdo, marka iyadii baan la hadlay, Maine Health isbitaalka oo halkaa ku yaalaan la hadlay branchiga. Kadibna waxay siiyeen ballan bay ii qabteen oo waxay raadiyeen areada aniga aan ku noolahay wixii iigu dhow. Dad badan gaar ahaan dadka waaweyn ayaa dhibaato ku qaba inay helaan ballamooyin ama meel ay ka qaataan. Marka adigu maad noo sheegi kartaa processka sida aad u martay, sida aad u qaadatay? Haddana waxaan maqlay in ay Gateway ay bixinayso 2 beri oo talaal ay bixinayaan, halkan oo maalinta oo Portland iyo maalin oo Lewiston so maxaad nooga sheegi kartaa? Sax weeyaan, aniga sidan kuu sheegay waxaan ka mid ahaa shaqaalihii laga dalbaday inay marka hore qaataan safka hore. Number baa nala siiyey, numberkii waxaan sameynay, numberka waad la hadli, kadibna machine baa kaa qaban, informationkaaga oo dhan baad gelinaysaa. Informationka markaad gelisid waxay oranayaan waa kusoo wici doonaa. Marka nin saaxiibkay ah wuxuu ii sheegay in ay jirto in aad la hadli kartid magaalooyinka yaryar oo statekeenan ka mid ah isbitaalka ku yaala, kaasoo dad badani aanay soo wacayn. Marka ay fududaanayso inay telefoonka markiiba kaa qabtaan. Marka waxaan wacay isbitaalka la yiraahdo Maine Health oo ku yaala magaalada Brunswick. Iyagii ayaa marka ballantii ii sameeyey oo waxay ii sameeyeen meel ii dhow oo magaalo ii dhow bay ii sameeyeen. Markii hore way adkayd, dadka da' bay ku socdeen, qoloba mar baa la ogolaanayay, gruubba mar baa la ogolaanayay, laakiin hadda waa ilaahay mahadi dadkii oo dhan waa la ogolaaday, 16 iyo wixii ka weyn waa la ogolaaday. Su'aal kale oo ku weydiinayana waxay ahayd dad badan ayaa walaac ka qaba si inay qaataan talaalkan sababo oo ku jira inay u malaynayaan inuu ku jiro doofaar dawadan ay qaadanayaan ama gelatin. Marka maxaad dhihi lahayd? Sidii intii hadda aan ka maqalnay culummada ka hadashay arrintan oo ku jiro culummo magaaladeenan ah, bahalkan waxa weeyaan waxaas wax hadda dhib weyna oo arrintaas ay aada uga muujiyeen ma jiro. Waxay aad ugu dhiirigeliyeen dadka inay qaataan, in waxay ka hadleen in uuna dhib ku ahayn Ramadaanka,
oo arrintani aanay xitaa ramadaanta gudaheeda ay qaadan karaan, oo qofkii isagoo sooman uu qaadan karo, oo tallaalka inta uu ka kooban yahay ay tahay wax aada u yar, oo tallaalkuna uuna gelaynin xididka uu ku mudmayo muruqa. Marka ma aha wax qofka uu ka helayo nafaqo ama biyo kala ahaan uu u qaadanayo oo hadhow dhib u keenaya soonkiisii. Marka sidaa daraaddeed aniga intaan ogahay culimmadeenu wax dhiba may ka sheegin. Marka dadka waxaan kula talinayaa inay walwalka iska saaraan oo arrintan muhiimka ah ay sameeyaan oo ummadeena ay inta ay la nool yihiin badbaadiyaan. waan gartay wax yar maad nooga sheegi kartaa tallaalka maalintii aad qaadatay, waa khibradaadu siday ahayd iyo wixii aad la kulantay? Tallaalka maalintaan qaatay ka koobaad markaan qaatay waxaan ku aadistay maalin jimco ah ballanta markaan sameynayay, waayo sabti axad fasax baan ahay. Marka qaybtii koobaad adiga madax xanuun baan lahaa laakiin aada uma badnayn. qaybtii dambe markii labaad oon qaatay malaa waxaa u dhexeeyay 2 week. kaa dambe markaan qaatay waxaan dareemay madax xanuun sidoo kale iyo xoogaa murqa xanuun. Marka maalinaan shaqaynayay ma ahayn, gurigaygaan iska joogay. maalintii ku xigtayna iyo galabkii isla maalintaasba caadi baan ahaa, magaaladeeda caadi baan u maray. waan gartay maxaad ka leedahay social mediaha iyo dadkan oo iyagoona aana qaadaninba ay ka hadlayaan tallaalkan? maxaad ka leedahay inuu social media uu ka bixinayo cudurkan iyadoo aan rabno inaan ka baxno? waxaan aan u arkaa social mediaha in ay waxa ay sheegayaan ay yihiin wax waafaqsan hay-adda caafimaadka. hay-adda caafimaadka waxay sheegtay in arrintan aada loola socday, in la dabagalay 2 bilood, in la dabagalay dadkii qaatay oo la fiiriyey in ay wax dhibaataa keeneen. sidoo kale waxaa baaritaan ku sameeyey jaamacado iyo hay-ado madax bannaan. marka sidaa daraaddeed maadaama hay-addii caafimaadka aanay wax dhiba sheegin, waxaa loo baahan yahay dadka arrimaha bulshada isticmaalaya inay noqdaan dad aada u feejigsan oo warka ay u gudbinayaan bulshada uu ahaado mid cilmiyeysan oo raacsan culummada iyo bahda caafimaadka wixii ay kula taliyeen dadka. okay waan gartay adigu maadaama ood qaadatay wax oo asxaabtaada ah ama familigaaga ah maad la hadashay si ay oo ka shakisnaa inay qaataan markii hore, laakiinse seebaad u wajahday ood u dhahday waxaan inuu fiican yahay si aan cudurkan uga baxno? aniga waan la hadlay dad badan oon asxaabnahay waan la hadlay iyo dad ahli ah. sidoo kale waxaan isticmaalay arrimaha bulshada oo aan dadka ugu sheegay in arrintan la qaato. arrintan aada bay muhiim u tahay. qofku wuxuu badbaadin karaa keliya maaha naftiisa, dadka waaweyn ee la nool, dadka xanuuno horey u qabay ee la nool. marka sidaa daraaddeed aada baan ugu dhiirigeliyay dadka intii aan aqaano iyo intii aan asxaab ku nahay arrimaha bulshada. okay bulshada weyn ee Soomaaliyeed ee adduunyada dacaladeeda ku kala nool oo halkaas hadda ku kala nool, maxaad u sheegi lahayd in ay bahalkan u fiican yahay oo qaataan? waxaan u sheegi lahaa in tallaalkani uu yahay waxa aynu hadda haysano oo looga hortegi karo xanuunkan. in la baaray sidaan horeyba u sheegay oo 2 bilood dadkii qaatay ilaa 44,000 dad ka mida ilaa iyo Septembertii in lala socday oo la eegayay isbedelka jirkooda ku imaanaya iyo sida ay arrintan hadday wax cusub ku keentay. sidaan horeyna u sheegnay waxa ay adiga naftaaday khatar gelin kartaa oo xanuun dhibay ku keeni kartaa, sidoo kale ama dhimashada gaarsiisan bay ku keeni kartaa. teeda kale waxay dhib ku tahay dadka kula nool, dadka aada la shaqaynayso, dadka bulshadan aada masaajidada iyo aada kula kulmayso meelaha arrimaha dadka bulshadu ku kulmaan, meelahaas oo dhan ayay saameynaysaa. dadkan xanuunada horey u qabay bay aada u saameynaysaa. marka waxaa loo baahan yahay inaadan naftaada keliya ka fakerin oodan taada bes eegin, inaad taada eegto, dadkiina aada
ka walwasho oo aad tiraahday xanuunkan sidee baan anigana isu badbaadin karaa dadkiina aan uga badbaadin karaa iyo bulshadii aan ku dhex noolaa. waa hagaag waad ku mahadsan tahay yuusuf martida aan halka noogu imaatay waan kaaga mahad celinaynaa. halkaasna waxaa noogu dhan su-aalihii aan walaalkeena yuusuf aan u qabnay. waa hagaag sidaas halkaa waxaa noogu dhan marka barnaamijkii waa inoo isbuuc kale.